gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo soo saaray in la hakiyo 3 kamid ah kuraasta golaha shacabka kuraasta la haki waxaa kamid ah midka uu haatan ku fadhiyo Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo doorashadiisa ka dhacday magaalada Beledweyne maalinka Axadeed sida muuqata ma aysan jirin cabasho loo soo jeediyay guddiga xalinta khilaafaadka balse sida aan wararka ku helino waxaa jirta in uu diidan yahay ra'iisul wasaare Roble in la siiyo kursiga Fahad Yaasin taasoo keentay khilaaf soo kala dhexgalo guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga FID warar hoose waxay sheegayaan in guddiga doorashooyinka FID ay ku kala qaybsameen hadalkii uu jeediyay gudoomiye Muuse Geele saacadaha soo socda waxaa la filanayaa in ay soo hadlaan qaar kamid ah guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga FID iyagoo uga jawaabi doona hadalkii uu jeediyay gudoomiye Muuse Geele oo ku diiday 3 kamid ah kuraasta golaha shacabka waxaa jirta cabashooyin badan oo loo soo jeediyay guddiga doorashooyinka iyo ra'iisul wasaare Roble balse intaba looma qaban taa oo jirta in banaadirigi ay haystaan 5 kursi oo golaha shacabka ah warkiis shalay ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble bulshada beelaha banaadiriga ay u arkeen in uu yahay war marin habaabin ah warkaas uu ahaa in cabasho ay ka imaaday qaar kamid ah odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga iyo bulshada rayidka taasi waxba kama jiraan waaye ra'iisul wasaare oo cabasho ka imaaday qaar kamid ah odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ma jiray waxay ka timid cabasho beelaha oo dhan waxaan rabaa ummadda jahwareerin badan la jahwareeriyay waxaan aragnaa ummadda Soomaaliyeed inay ku jahwareertay kuraasta banaadiriga waxaa idin sheegaynaa banaadiriga waa 4 xamar 5 shangaani iyo culumadooda waa 10 isqabiil waay iyo qabiilo hoos yimaada halkan waxaa ku dhan marka 10 qabiil kuraas ma wada lahan horaa loogu dulmay golaha shacabka iyo aqalka sare qabiil walba kursi lama siinin ilaahay wuxuu u sahlay 5 kamid ah kuraasta waqtigii carto la asteenay kuraasta la soo asteenay iyo imbagaati ayaa lagu soo asteeyay 5 kursi xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxaa ka socota musuqmaasuq baasan oo lagu hayo doorashooyinka golaha shacabka rag kamid ah xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa suubiyay gaboodfallo ku aadan doorashada inta uu awood u yeelan karaan ay ka shaqeeyeen boobka doorashada haatan socoto cabashooyinka doorashada aad u soo bateen iyadoo inta uu si dheer tahay is-hortaagyadii kuraasta xildhibaanada oo aad u soo bateen saacadii ugu dambeeyay waxaa la hor istaagay in uu u tartamo doorashada xildhibaanimo Cabdi Cali Raage oo ah la taliyaha doorashooyinka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan halkan jeclahay inaan salaan iyo baaq aan uga diro dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Jubbaland waxaan ku sugnahay magaalada Kismaayo oo aan soo gaaray saaka abaaro 11kii ujeedada safarkayguna waxay ku aadanayd inaan helo dokumentiyadii ama waxyaabaha hordhaca u ah kursigii 072 oo aan u tartamayay isla markaan soo gaaray magaalada Kismaayo isla markiiba waxaan abaaray meeshii maxaan ku idhaahdaa loo madlay ama loo asteeyay in laga qaato warqadihii amniga markii aan meeshii gaadhayna waxaa la ii sheegay inaan wax warqada la isiin doonin hay'adihii amniga waxaan la sameeyay xidhiidh waxaan la hadlay ninka ugu sareeya waxaan u sheegay inaan doonayo inaan kursiga u tartamo maalinta berri ah doorashadiisu dhici doonto waxaana ay ka gaabsadeen in warqadaas la isiiyo sidoo kale waxaan mar labaad abaaray aan aaday meeshii lagu gundoonsiinayay shahaadooyinka dadka u tartamaya muxuu ahaa kursigaas iyagana sidoo kale waxaan ka codsaday ana u sheegay inaan u tartamo inaan candidate u ahay kursigaas waxaana ka codsaday in warqadihii shahaadadii aan ku tartami lahaa aan ka helo
nasiib darro sidoo kale waxay ku adkaysteen in aan keeno warqadihii amniga sidaa darteedna aysan ogolaanayn inay wax warqad ah oo maxaanku shahaado aynay siinaynin ilaa iyo inaan warqadda amniga la imaado mooyaane. guddiga doorashooyinka kama aysan jawaabin eedeemihii loo soo jeediyey maalmihii ugu dambeeyey ee ku aadaneyd boobka doorashada golaha shacabka ah